maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa xukun dil ah ku riday eedeysane Cali Maxamuud Axmed oo ka tirsanaa ciidanka booliiska kaasoo 8 bishan May magaalada Muqdisho ku dilay darawal mooto bajaaj. xukunka dilka ayaa noqonaya kii u horeeyay ee lagu rido askari dila darawal mooto bajaaj tan iyo markii ay soo korortay dilalka loo geysto darawalada mooto bajaajta ee Muqdisho ka dhax shaqeysta. askariga la xukumay ayaa dilay marxuum la oran jiray Cabdirasaaq Yuusuf Guure oo ahaa wiil dhalinyaro ah oo ku shaqeysta mooto bajaajta halka uu dhaawacay Cali Xaashi Mataan oo sarifla ah. dilkan ayaa waxa uu ka dhacay isgoyska Tarabuunka ee degmada Hodan waxaana suura gashay in askariga dilka geystay ciidamada amnigu ay qabtaan. dacwadda ayaa socotay dhowr maalmood waxaana maxkamadda la hor keenay marqaatiyo Israa'iil ka tirsan ciidanka oo goobjoog ahaa markii uu dilka dhacayay sida uu ku dhawaaqay ama xukunka uu shaaciyay gaashaanla sare Xasan Cali Nuur Shuute oo ah gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Soomaaliya. markay aragtay maxkamaddu cadeymaha dambi muujinta oo ay ka mid ahaayeen cadeymaha laga qoray maraga iyo dhibanaha dhaawaca ah, qiraalka laga qoray eedeysanaha, warqadda cadeynta dhimashada iyo sawirada marxuumka, mootadii uu wadaha ka ahaa marxuumka, qoragii uu dilka ku geystay eedeysanaha oo noociisu ahaa AK 103 number eber 8 eber 96. markay dhageysatay doodii u dhaxaysay dhinacyada kala ah xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo qaranka difaacaya eedeysanaha, sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedeysane deble booliis 25226 Cali Maxamuud Axmed uu yahay dembiile galay dembiyada lagu soo oogay, waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Cabdirasaaq Yuusuf Guure. cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan. askarigan ka tirsan ciidamada booliiska ee xukunka dilka ah lagu riday ayaa noqonaya askarigii ugu horeeyay ee loo xukumo dil darawal mooto bajaaj xilli la wada og yahay in askar badan oo dilal u geystay dhalinyarada mootooyinka ku shaqeysta qaarkood ay joogaan magaalada Muqdisho oo aan wax maxkamad ah la soo taagin halka qaarna ay baxsadeen oo gobolada dalka qaarkood ay gaareen.